maxay shacabka xamar joogay imka qaylinayaan koonfur joogaan Puntland joogaan maalin maxay noogu mudaharaadi waayeen markaan habeen iyo maalin dhibanayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi ayaa waxay si gaar ah uga hadashay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee sheegay inay Somaliland ku matalayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaanay fariin u dirtay xildhibaanadaasi xamar inay jirtana uma aqaan inay dad Somaliland u dhashay joogaan uma aqaan waa sababta la igu sheegay inaan ku haladagahay meesha laakiin ninka wajigiisa duuban yahay ee isagu bareeri kari waayay isagoo xoro codkiisa dhiiban kari waayay Somaliland uu dhashay maxaad ku cadaynaysaa iyo inuu qoladii kuukuyadii baydhaba yahay kala garan maysideedii xamar u dhashay marka wuxuu hadduu qofku xor yahay oo la dooranayo de waa sideen oo kale qofka la dooranayo la arka oo markuu soo baxay halkaas soo taago yiraahdo xildhibaan baan marka anu qolada xamar joogta calooshooda oo shaqaystayaal baan aqaana waana nacebahay umada koonfurna waxaan ugu baaqi lahaa inay iska soo saaraan dhanka kale waxay wasiiradu iyadoo hadalkeeda si wadata ka hadashay dadka laga tarxiilay magaalada Laascaanood iyo sidoo kale kuwa degniinta loo diray ee dhawaan laga saari doono gobolka Sanaag dadku laba siyood bay ku soo gali karaan wadanka dad haddaad u ogolaato ganacsadaha oo maxaa la yiraahdaa wadanka wax ku soo kordhinaya caalamka oo dhan waa la kireeyaa badna waa qaxoontiyo de waa inay kaar qaxoontiyo hay'ad qaabisho magangeliye siyaasadeedna waa la isweydiistaa haddaad markaa qaadi karayso capacity-ga aad leedahay saddexdaa midna haddaan ahayn qofku wadankaaga sharci darro ku soo galay qofka sharci darrada kugu soo galayna inaad iska celiso wax dib u ku jira ma arkay mid kale waxaan sheegayaa iyagu shalay markii la leynayeen la xasuuqayay ee diyaaradda Hargeysa ka kacda dib noo garaacisay maxay shacabka xamar joogay imka qaylinayaan koonfur joogaan Puntland joogaan maalin maxay noogu mudaharaadi waayeen markaan habeen iyo maalin dhibanayeen Soomaalida sheegayaan anagu markaa meena Soomaali ahayn Soomaali anagu ma ahayn ajaanib baa laga saarayaa baa leeyahay miyaan ajaanib ahayn kuwa kale nin kasto Soomaaliland u dhalan waa ajaanib Soomaaliland xuduud bay leedahay sharci bay leedahay ciidamay leedahay dastuur qoran bay leedahay golayaal bay leedahay madaxweyne ay leedahay qof kasto oo Soomaaliland inta ka soo jeedana waa la yaqaanayo u dhalatay xeer baa jira qofka hadduu 60kii Soomaaliland hadduu ku dhashay in muwaadin loo aqoonsado dhanka kale wasiir Yurub Abiib waxa ay ka hadashay xuska shuhadada SNM oo maanta laga xusay magaalada Hargeysa anigu dagaalka ma joogin kamana qayb galin barigaada inay yar baan haysanamtii waxa kuma jirin markaa laakiin kadib markaan halganka ku biiray maalintii SNM ugu cadara badnayd bay ahayd dhinacna maalin murugay ka ahayd dhinacna maalin guushii SNM ay soo hoytay ahayd maalin jawiga bedeshay bay ahayd maalin in badan la weeyay badan la farxay bay ahayd maalintii SNM ciil ugu dambeysay bay ahayd maalintii ay guuleysatay bay ahayd maalintii caalamka laga ogaaday inay SNM jirtay ahayd caawimooyinka ugu waaweynaa markay heshay dagaalka SNM lagu ictiraafay bay ahayd dagaal dhibaato badan iyo maxaa la yiraahdaa dad badan ay ku dhinteen guul badan dhaliyay oo faqash badan lagu laayay oo maxaa la yiraahdaa dawladdiisa aad waxba isku lahaadinay dagaalka Burcadure gashay isla markaana guutada halka ka soo baxday awaare ee lix la watay maxaa la yiraahdaa dagaalka kula kulmay waxay sheegeen in mujaahidiintii inta badan aan taariikhda ka qaatay labadii duhurnimo bilaabmay lixdii barkii galabnimo uu dhamaaday laakiin anigu dagaaladii aan goob joog ahaa Hargeysa ilaa habeenkii la soo galay maalintii ciidanka laga saaray labadeeduba goob joog bana caasho ku dhaawacantay dhowr jeer laakiin si wanaag aniga xabad culus iyo mid fudud toona iguma dhicin ma dhaawacmin Maxamed Ducaale Cabdi Ariel TV magaalada Hargeysa